السلام عليكم. maanta way taariikhdu tahay 29 bisha 11 sanadka 2021 waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ay wehelinayso marwada koobaad ee qaranka Marwo Zainab Cabdi Macallin iyo wafdi uu kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Cabdi Saciid Musa Cali, wasiirka dhalinyarada iyo arrimaha ciyaaraha Mudane Hamza Saciid Hamza iyo guddoonka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Mudane Cabdiqani Saciid Carab ayaa soo gaaray magaalada Dawxa ee dalka Qatar, halkaas oo uu uga bilaabmay safar shaqo oo qaadan doona muddo 2 maalmood ah. madaxweynaha oo martiqaad ka helay amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa kala hadli doona xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dowladaha Soomaaliya iyo Qatar isaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta ciyaaraha iyo iskaashiga maalgashiga. booqashada madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku joogo dalkan Qatar waxaa sidoo kale qayb muhiim ah ka ah furitaanka koobka kubadda cagta ee Carabta oo lagu macsuumay madaxda dowladaha Carabta si loo xoojiyo isla markaana loo dardargeliyo horumarka dhinaca ciyaaraha iyo isdhexgalka dhalinyarada iyo shucuubta dalalka. madaxweynaha jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay dalkan Qatar waxa uu kulan daceed la qaadan doonaa madaxda ka soo qayb gali doonta munaasabadan. madaxweynaha iyo wafdigan ballaaran ee weheliyay waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Dawxa si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiiru dowlaha Dr. Hamad Al-Kawari iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkan Qatar danjire Cabdirasaaq Farax Ali Tano. waad mahadsantihiin.